wax ka baro taariikh ku saabsan wadanka Singapore. Dalka Singapore waxa uu ku yaalaa koonfur bari ee qaaradda Aasiya. Jamhuuriyadda Singapore waxa loo kala qaybiyaa taariikhdeedii saddex marxaladood oo kala ah. kow, marxaladii gumaysiga, meesha juqraafi ahaan ay ku taalo Singapore aawadeed oo ah meel xiriirisa Shiinaha iyo India. Waxay quwadihii beriga jiray u kala tartameen sidii ay u qabsan lahaayeen meeshaasi istiraatiiji ah qarniyadii 16aad iyo 17aad, waxaana ka mid ahaa quwadihii ku loolamayay boqortooyadii Boortaqiiska iyo boqortooyadii Holland. labo, marxaladii isticmaalka Ingiriiska bilowgii qarnigii 18aad, gaar ahaan sanadku markuu ahaa 1819 ayaa ninkii lagu magacaabi jiray Raffles Thomas Stamford qabsaday wadanka Singapore, halkaas uu ka aas-aasay dekad weyn sababo ganacsi awgeed. kadib waxay ka mid noqotay mustacmarooyinkii ama meelihii uu gumaysanayay Ingiriiska, halkaas oo qiimo aad u weyn u lahayd mantiqada koonfur bari Asia haday ahaan lahayd dhanka ganacsiga iyo militariga. waqti kadib, gaar ahaan dhamaadkii qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad, waxaa aad u siyaaday ahmiyadda Singapore ee dhanka isu socodka ganacsiga iyo dhoofinta badeecooyinka cayriinka, gaar ahaan birta iyo rabadka, iyadoo laga keenayay wadamada bariga kuna sii jeeda wadamada reer galbeedka. markii uu ziyaaday dhaqaalaha, waxaa ziyaaday dadkii usoo hijroonayay Singapore si ay nolol fiican uga helaan, iyagoo dadkaasi ka imaanayay Shiinaha iyo India. Japan ayaa awood u yeelatay inay qabsadaan wadanka Singapore intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka 1942 ilaa 1945, laakiin Ingiriiska ayaa dib ula wareegay Singapore sanadku markuu ahaa 1945. saddex, marxaladii gobonimada Singapore ayaa xornimada ka qaadatay wadanka Ingiriiska sanadku markuu ahaa 1959. sanadkii 1963 ayaa Singapore ay ku biirtay midoogii Malaysia, waxayna noqotay qayb ka mid ah. sanadkii 1965 ayaa Singapore dib ugu noqotay la midowga Malaysia, waxaana la aasaasay jamhuuriyad ay madax ka noqotay ra-iisul wasaarihii hore Lee Kuan Yew. dadka wadanka Singapore waxaa lagu qiyaasaa 50,320,000 oo qof, waxaana ka mid yahay wadamada cufnaanta dadweynaha ku badan yihiin, iyadoo lagu qiyaaso in halkii kilomitir ay ku nool yihiin dad dhan 6,112 qof. dadka Singapore asal ahaan waxay ka kala yimaadeen marka laga reebo dadkii hore u deganaa oo kulumaysto u badnaa wadamada Shiinaha, India, Pakistan, Indonesia, Sri Lanka iyo bariga dhexe. luuqadda Singapore, wadanka Singapore waxaa lagu hadlaa 4 luuqadood oo kala ah Malay, Mandarin, Tamil iyo English. luuqadda rasmiga ee xafiisyada dowladda, iskuulada, jaamacadaha waa English. diimanka ay dadka aaminsan yihiin dalka Singapore waxaa ugu weyn Buddhistaha, waxaana xiga Islaamka, kaalinta saddexaadna waxaa ku jira Armin, afraadna Masiixiga ama Kirishtaanka. dhanka dhaqaalaha, sanadkii 1960 dakhliga Singapore waxaa kaliya uu haystay waa mantiqada uu ku yaalo oo ah meel istiraatiiji ah iyo shacab go'aan shaqo adag leh iyo hadaf cad. kasoo bilaabato waqtigaasi ilaa hadda, Singapore waxay gaartay horumar dhaqaale oo aad u weyn. dhanka waxbarashada, wadanka Singapore waxaa lagu sheegaa wadamada ugu tayada fiican caalamka dhanka waxbarashada, waana waajib in muwaadinka wax barto. haddaba haddii aynu Soomaalinahay, waxa aan ka baran karno wadankan waxa ugu muhiimsan inaan noqono dad shaqo badan, hadafkooduna waadix yahay, oo isku daya mar walba inay xaqiijiyaan ahdaaftooda si ay iyaga iyo caruurtoodii ugu noolaadaan nolol wanaagsan. sidoo kale waxaan ka baran karnaa wadankan inaan noqono dad isku meel wax u wada, wadankoodana horumariya, iyagoo dhinaca iska dhigaya kala fikir duwanaanshaha haddii ay ahaan lahayd jinsiyad, luuqad ama diin. laakiin Soomaalida inta badan waa isaga mid, inkastoo anaga aad moodid inaan gadaal u socono halka dadweynaha caalamkan ay hore u socdaan. anagoo ku guda jirnaa taariikhda wadanka Singapore, ayaa wadankaasi waxaa loo aqoonsaday inuu ku yaalo airportka ugu fiican dunida. geegida diyaaradaha ee lagu magacaabo Gangi ee dalka Singapore ayaa soo diray digniin rajo beel ah, iyadoo aysan muuqan ifaalo ah in xanuunka COVID-19 dhamaanayo. airportkan uu ku yaala qaaradda Aasiya ayaa si joogto ah loogu codeeyaa inuu yahay airportka ugu fiican dunida, kaasoo ay ka duulaan amaba kasoo degaan 60 ilaa 70 milyan oo rakaab ah. airportka Gangi ayaa hakeeyay shaqada 2 qaybood kadib markii duulimaadyada aad uga hoos dhaceen markii ugu horeysay abid. waxaa sidoo kale la joojiyay dhismihii qaybta shanaad ee 2 sannadood ee lasoo dhaafay ka socday airportka. dagaalka lagula jiro COVID-19 haatan ayuunu bilowday, sidaa waxaa warbixintoodii sanadlaha ku yiri kooxda airportka Gangi. mustaqbalka waa mid aanay rajadiisu wanaagsanayn. Singapore ayaa 23 bishii Maarso 2020 joojisay soo gelidda iyo sii marista dalkeeda, waxayna taas horseeday inay gabi ahaanba joogsadaan rakaabkii airportka. hase yeeshee, saameyntii bilihii uu xirnaa airportka Gangi ayuu weli kasoo kaban la'yahay, waxa uuna khasaaray lacag dhan 435 milyan oo dollar. airportka Gangi ayaa sanadkan 2021 loogu codeeyay inuu yahay airportka ugu fiican dunida, taasoo ka dhigan in sanadkii 8aad oo xiriir ah uu noqday airportka ugu wanaagsan caalamka, sida laga soo xigtay shirkadda Skytrax oo fadhigeedu yahay UK. sanadkii la soo dhaafay, airportka Gangi ayaa xariga ka jaray
xarun lagu dugaamaysto oo aad u weyn oo fadhigeedu yahay 14 hektar oo isku wareeg ah. kooxda gegida diyaaradaha ee Jangi ayaa sheegay in rajada dib u soo noqoshada shaqada airport ay ku xiran tahay sida dalalka caalamka ay u mareeyaan xuduudaha iyo qafiifinta shuruudaha duulimaadyada ee lagu xadidayo faafitaanka cudurka COVID-19. madaxweynaha wadanka Singapore waa Halima Yacob, halka ra'iisul wasaaruhu yahay Lee Hsien Loong, kaasoo leh awoodda koowaad ee wadanku waa dal leh horumar bulsho oo aad u ballaaran. dhaqaalaha dalku waa 349 bilyan, waana kan 41aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida, bal qiyaas hal magaalo oo hantideeda intaas la eg tahay. Singapore waxay ka horeysaa dhaqaale ahaan dalal badan oo Yurub, Ameerika, Afrika iyo Aasiya dhaca oo ah kuwa ugu waaweyn. Singapore waa dal leh baasaboorka labaad ee ugu xooga badan dunida, kaasoo ay ku tagi karaan 188 dal oo dunida ka mid ah fiisa la'aan. Singapore waa udub dhaxaadka ganacsiga dunida, maaliyadda iyo xarunta gaadiidka. Singapore waa dalka leh internetka ugu wanaagsan dunida, sidoo kale waa kan ay ku kulmaan shirkadaha ganacsi ee ugu waaweyn adduunka. Singapore waa dalka ugu maalgashiga badan dunida, sidoo kalena waa tan ugu macquulsan xagga horumarka. Singapore waa dalka ugu muhiimsan dunida, sidoo kalena waa dalka ugu tartamada badan dunida, sidoo kalena waa dalka leh suuqa sarifka qalaad ee ugu ballaaran dunida. sidoo kale wadanka Singapore waa dalka saddexaad oo leh xarunta maaliyadeed ee ugu weyn dunida, sidoo kale waa dalka saddexaad ee ugu saliid nadiifinta badan aadna ugu ganacsata. Singapore waxay leedahay dekedda labaad ee ugu mashquulka badan adduunka. sidoo kale Singapore waxay 5 sano oo xiriir ay noqotay magaalada ugu nolosha qaalisan adduunka. sidoo kale Singapore waa dalka shanaad ee ugu nolosha wanaagsan dunida. Singapore waa dalka saddexaad ee dakhli sanadeedka ugu badan leh dunida. qofka u dhashay wadankaasi Singapore wuxuu sanadkii soo galaa $98,000. wadankani waa kan ugu horeeya waxbarashada, caafimaadka, qiimeynta nolosha iyo amniga aadka u horumaray. sidoo kale Singapore waa dalka ay ka jirto shaqo la'aanta ugu yar qaaradda Aasiya oo ka hooseysa 8% qiimeynta la sameeyay sanadkii 2020. Singapore iyo Kuala Lumpur waa marin diyaaradeed ugu mashquulka badan dunida, kaasoo ay maraan sanadkii in ka badan 30,000 oo diyaaradood. haddaba ku darso wadankaasi aan ka hadlayno gebigiisba 53 sano ayuu jiraa. Malaysia ayaa iska soo ceerisay oo ku tilmaantay jasiiradii kaneecada. kaliya waa ay tashadeen, waxay tuujiyeen maskaxdooda iyagoo dalkoodii sida ugu wanaagsan u horumariyay. haddii aan eegno dhanka waxbarashada wadankaasi Singapore, waxaa la shaaciyay qiimeyntii ugu weyneed ee caalamiga ee ku saabsan waxbarashada iskuulada. waxaa 5 kaalinta ugu horeysa galay dalalka Aasiya, halka kaalimaha ugu dambeeyna ay galeen dalalka Afrika ku yaala. qiimeynta ayaa waxaa sameysay hay'adda daraasaadka dhaqaalaha sameysa ee magaceeda la soo gaabiyo OECD oo isbarbar dhigtay iskuulada waxbarasho ee ku yaala 76 wadan. 5 kaalin ugu horeeya ayaa waxaa kala galay dalalka Singapore, Hong Kong, Koonfurta Korea, Taiwan iyo Japan oo dhammaantood ku yaala qaaradda Aasiya. 5 kaalin ee ugu dambeeya qiimeynta waxaa iyana galay dalalka Oman, Morocco, Honduras, Koonfur Afrika iyo dalka Ghana oo galay kaalinta ugu dambeysa ee 76aad. dalka UK ayaa galay kaalinta 20aad, halka Mareykankana uu galay kaalinta 28aad. Singapore oo gashay kaalinta koowaad ayaa sanadkii 1960 waxaa ka jiray heer aad u sareeya oo aqoon la'aan ah, waxaana taasi ay muujinaysaa horumarka waxbarasho uu dalku ku talaabsaday. qiimeynta ayaa lagu saleeyay imtixaanada caalamiga ee ardayda dalalkaasi ay u fadhiistaan, iyadoo isku si loogu xisaabiyay dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya. natiijada kasoo baxday qiimeyntaasi ayaa si rasmi ah loo hordhigay shir caalamiga oo ku saabsan waxbarashada adduunka, kaasoo toddobaadkii hore ka dhacay dalka Koonfur Korea. qaramada midoobay ayaa shirkaasi kusoo bandhigtay yoolka waxbarasho ee ku talaabsan karo wadankaasi Singapore marka la gaaro 2030.